waayahay xildhibaano ama waa xuquuqaad ayaad sheegtay in weli dowladda dhexe ay idinkaga maqan yihiin maxaa markuu idinkugu soo kordhin karaa in ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad ama saddexaad la idin magacaabo عمره إن رئيس الوزراء كحجال لبعض نلام مجاعة ورت السدحات ده سنجد عفي إن رئيس الوزراء كحجال لبعض نلام مجاعة ونوسو كردنا وحوسو كردنا يكون اسمه برلمان كسوماليا النجح اللي ما نقدر نجربونه ضعفية اللي ما نقدر بيش شنادي اللي ما نقدر كله يعني لون كيو أرد كالصعود وياه بيسان هدي أيسن مهم اللي ما بردين لهم بفيري دروا عن كايش كي أو حاسو حيل هايست أو قدومي محكمة السنة هايست أو حاسن كل شيء وحكم بدن هايسته وحي كل على ما يسوي الدفاع عن يسا رئيس الوزراء كحجين كإن نقف كلا لقول مانين أو رئيس الوزراء كحجين كلا لكينين أي برلمان ضد هذا كده حوضا دقيق المرفلة إذا إحنا بنقول حي هذين عيان إن حلول تسوق قررت أنك كسماء أهان سياسيين تنا أيا وارجنا أرنتنا وإن نوقعنا مويه حتى أنا البرلمان كأنه مو برارو سنة حلبنا البرلمان كم برارو سنة أرنتنا حتى إذا كرهت سد كم برارو سنة ضد مركو حيود حيسان الله بدأ سنين حيود حيسان بو حينا واسولا أنا وحن كفائدينا واحد دقل من رفلك كفائدان وحن كفائدينا واحد دير كفائدة يسمى أنت كرسي دفاع عن سؤال لا ضحي خوف كله أو رئيس الوزراء كحجين كل ما معناه يمجر تأيلا ضحي وحسن كده أن كيلنا مثل ما كان سيدا الرسمي يقول لها مننا الدوام مثلات وحن خايب كنا قلنا مسرحيات السياسة أو يعني قوامد الجوجا هذا فيري وحد أشرر ليرا شركة مدرسة وده تشجع قرنا ليرا وح كل ما وجل عويني قوانك وح جاروا وجل عويني إدى الله قلنا قنا وجر عويني قوامد كالصباح كل مدرسة وده تشجع قرن جر عويني الله قلنا هل تلاقوا ماله ما فرقيه هذا مركز رئيس الوزراء كحيل ناس والناس وقالوا حلقيها بين كل ما داس وقيد فنعوض تركوا يشوا وفير سوق أنك استقوا ذلك اللي جاراي شرنا الرزق ذلك وكجرنا حتى يعني نلا ما قاطو ما حكينا إن بيعك السنة نلا يعني نلا ويراني أي كينيس مركب مثلات واحد بدنا يترتاح هدور أدير رئيس الوزراء كحيل ناس عنه يلونه حنا مسنا واحد بدن وهذا أن لا معي إن نيلين إن شاء الله وايه waxyaabaha kale ee war-saxaafadeedka lagu sheegay waxaa kamid ah in xildhibaanada bariga Afrika ka imaanaya inaadan xuquuqdina ku weynin bal waxaad noo sharaxdaa oo aad markaasi warbixin naga siisaa xildhibaanadaas maxay yihiin waa maasantahay Umarow xildhibaanada bulshada bariga Afrika sidaan haday ku sheegay xubin kasta ama dawlad kasta oo bariga Afrika qayb ka ah bulshada bariga Afrika qayb ka ah waxay leedahay 9 xildhibaan oo matasha wadamadaas marka min 9 xildhibaan ay wadan kasta leeyahay wadan kasta oo ku soo biirana 9 xildhibaan uu yeelanayo 9kaas xildhibaan marka waxay matalaysaa waa safiiro 9kaas xildhibaan dawladda Soomaaliya ay waxay ku matalaan bulshada bariga Afrika marka waa runtii waa xubno aad u weyn waayo oo muhiim ah annaga marka ka jireen ahaan waxaan aaminsanahay Soomaali jilaawan waa taqaanaa Carabaan nahay dhahan laakiin dadka taagan Afrikaan nahay annaga waa wali still dadka aan wax ku darsanayna Afrikaan waa annaga doodan waxay tahay ama dooda sama ay tahay war iyadoo Afrikaan wax lagu darsanaayo idinku Carab sheeganaya 9 xubnood qaadanino oo innaga Afrikaana intaad naga tagtaan Afrikaanimadii ha ku qaadanina 9 xubnood wax naga siiyo hal xildhibaan hada yani maqaal nagu ah annaga soo gaaray in la ogol yahay halka xildhibaan jarweyne lama ogola ee beesha shanaad beesha shanaad waa ogtahay iyadaba dawladaba oo hawiye ku jira daarood ku jira dil ku jira digli mirfle ku jira waa kaasa inta la dulmiyo dhan iyo jarweyne ayaa ku jirto marka waxaan rabnaa annaga xubintaas inay noqoto xubin jarweyne ay yeelato ayaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo waayahay tira ahaan xildhibaanadu waa yar yihiin waa 9kaas qoomiyadda jarweyne ee Soomaaliya iyo kuwa caalamkaba dhalinyarada wax bartay ee qaarkood Soomaaliya ku sugan shaqo la'aanta ah maxaad isleedahay way ka heli karaan guud ahaan qoomiyadda Umar Hussein ku sheegay annaga halaaba noo ogol yahay ku iri halka naftirkiisa beesha shanaad lagu ogol yahay yani jarweyne xataa looma ogol 9 kaba annaga xaq u leh inaan qaadano hadii laga hadlaayo dadka loo socdo Afrikaan waa annaga Carab ma socono
annaga ma lihiin jaamacadda carabta matalaad hana laga siiyo bulshada bariga afrika hana laga siiya leenahay matalaada aan helayno marka sagaalkaas xildhibaan haddiiba halka laga helo ayaaba aan caana sidnaaba sabab kalena ma aha xildhibaanadii nagu matalaya federaalka labadiisa aqal umama jeedaanba waxan way og yihiin waxan way yaqaanaan wax ka sheekeynayna way og yihiin laakiin maba rabaanba umaba bislaba ma aqaan inay mushaar qaataan inay mukayfkaas iyo guryahooda ku dhex jiraan intaasay doorteen keliya waxaanaga fiiri tusaale cumarow anu hadda xildhibaanaan ahay ma ay xildhibaan maalin kastana waxaan u qaylinayaa oon ka hadlayaa war waxaan xaqa aan leenahay hana la siiyo ninkii xildhibaanka ahaa ee u weydmanaana waa ka aamusan yahay tusaalahan ku siina hadda nin xildhibaan hadda aniga imatalo baarlamaanka ku jiro beelaha reer shabeelle weligiis hal maalin uu baarlamaan ka hadlay weligiis dan reer shabeellena kama hadlin dan jareer weynena kama hadlin buuq soomaaliyeedna kama hadlin buuqa hala dhaafo buuqa maslax u istaagay dadkaasaa annaga nagu matalaaya baarlamaanka oo dowladnimada nagu matalaaya iyo dadka sii daran waxaan xuquuqaadkan aan inaga leenahay inagiiba haddaan diyaar u ahan inaan doonano yaana siinaayo inagiiba haddaan diyaar u ahan inaan doonano ciddana siinaysa oo hoo na dhaysa yaa waay waxaan ku baaqayaa oon ugu baaqayaa beelaha jaraweyne xildhibaanada ku matala baarlamaanka war walaalayaalow ilaahay ka cabsada wardadaad matashaan wardadaa meesha idin geystay si kasta ku taga afaalxumo kasta ku taga laakiin dadaad matalaysaan dadka aad matalaysaan ugu yaraan matalaad yar u muujiya bilaa caleyk waayahay wasiir waxaad leedihiin xildhibaano hadda idinkugu matala baarlamaanka oo golaha shacabka iyo aqalka sare idinkugu jira haddii aad idinkii oo maamul goboleedyadii dalka joogay aad ka hadlaysaan xildhibaanadiinii iyo wasiiradiinii ku jira dowladda dhexe maxay uga hadli laayihiin oo idinka idin matala oo golaha shacabka idin fadhiya oo aqalka sare idin fadhiya xildhibaanadeenna lagu matala labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sababtii u hadli laayihiin annagaaba la yaabanba annagaa la yaabanba mararka qaar waxaan isweydiiyaa aniga shaksiyan isweydiiyaa war dadku say wax ka yihiin ma falan yihiin ma meel lagu xirxirtay ma afduuban yihiin maxay ku jiraan annagaa isweydiina toodii kama hadlaayaan dantoodii waxa ama inay maxaa la dhihi jiray aroosyada muqdisho ka qayb galaan xafladaha muqdisho ka qayb galaan khudbada ka jeediyaan hawshooda intaas waa xildhibaanada jaraweyne annaga lagu matala hawshoodu waa intaas laakiin inay baxaan oo ay dhahaan war waxaana naga maqan awood uma laha fiiri cumarow inay dambaajiso maa rabtaa oo nimankaas aa igu dirtid nimankaas meesha inoo fadhiya aniga ma aqaan waxaaya laakiin waxaan leeyahay walaalayaal quraan isa saara xildhibaanka ilaan darad waxaan ka maqlayaa soo dhahaaya baarlamaanka hala rusheeyo wallaahi oo bilaahi oo talaahi kuweena tahliil u baahan kuwa inagana matala ee jareerweyne matala ayaa in la quraamiyo u baahan oo quraan la saaro u baahan oo faataxa inaan u marno u baahan ilaahay noo soo hanuuniye faataxadaan u marno waayahay wasiir haddiiba arrintaas ay jirto oo aysan xildhibaanadu ka hadlin weli oo aad idinkii maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiinta ka joogay ah oo aad ka hadlaysaan dowladdu soo lagama yaabo inaysan caawashadiinu dhagaysan oo xildhibaanadiiba ay ka aamusan yihiin cumarow dowladda federaalka soomaaliya cabashadeenna inay dhagaysato way ku khasban tahay jareer toddobadaas xildhibaan ee meesha fadhisa keliya ma ah siyaasiyiin ay leeyihiin dad maamul goboleedyo ku matalay leeyihiin oo aniga kamid ahay aqoon-yahanay leeyihiin barofesoray leeyihiin dad waxbartay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay ku qasbantahay inay dhagaysato cabashada dadka jareerweyne iyo dadka horboodaya hadday xildhibaanadeeni aamuseen kuwa hadlaya inay dhagaysato dowladdu way ku qasbantahay hadday dowladda dhagaysan weysana iyadaa wallaahi ka shalaayi doonto oo bilaahi ka shalaayi doonto oo tallaahi ka shalaayi doonto ummad lama qasbi karo bulsho qasab laysagama haysan karo tusaale waxaa idinku filan sool iyo somaliland tusaale waxaa idinku filan laascaane iyo hargeysa tusaale waxaa idinku filan firdhiye iyo muuse biici ummad xoog laysagama haysan karo waan aaminsanahay beelaha jareerweyne haddaanan laga daynin dhibka lagu haayo oo cadaadiska ka bato in waxaan wax ka bedelan uu imaan doono tusaale caagad coca-cola ah ama caagad sbrayd ah ama caagad fanta intaad qabatid furka ka furtid qabatid xer ee ruux kadibna fur maxaa dhacay way bulshaysaa adaa yeelay inay bulshto
هذه عادة أفرط مركه هوري أمي برشة مايا لكن واروح أنا كوك اللي في عادة داس إني برشته وحلاه جرير يلقو كلفن إني برشان أو وح لقو برتو حنا هنا اللي يمادان إلا دقيس الدولة ويكو قسمنته حق جرير وينه كم خلي الدولة بحسنا ويكو قسمنته وأنا قدسنا ودلبرنا إيه وين أنا قدسنا إنسان هاي وواجب تهاي حتى لو قدسنا إن الله سي إن شاء الله وأنا رجينا waxyaabaha aan u taaganno ka doodayno inaan bulshada bariga Afrika aan wax ka helno ra'iisul wasaare ku xigeenkana aan helno waagan ilmaha ayna waxaan maqli jirnay deysay hebel ku deystay annaga cidi u deysan meeyne kursigaas waa inaan helnaa haddii kale waa in sidiisa lagu daayaa